بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وإذن سلامي وعليه قالك أهمل باجوكتين سورة وهذا ومركلة فيديو كله عصب أصحابتي شرفت لي وقيمة قدر انتي مدن حايدين رجينا يا ميل باجوكتين خير يبش يبرواقو إنا كنوشهين سورة وعليه قالك ما أنتو حنوضا الله بقصو وكلا درن والله وضب إتعجبين دونتو هرتو وحماليس حسوسينا يا إني سورة واتي مالنتي عرفو ومايا maxaa yeelay maalmahan oo dhan ka soo hadlaynay fadliga ay leedahay ducada sida loo aqbalo in dambi dhaaf ay leedahay sadaqada 10 maalmood in ay wanaagsan tahay in oo 2 sano sanad soo socdo sanad kale soo dhaaf dambi dhaaf ay leedahay qofkii soomo oo ilaahay baryo oo duceysto inuu wax alle iyo wax ilaahay ka baryan uu helayo labada qiso maanta aanu wado waxay tahay laba gabdhood oo labadaba guur ka soo daahay labadaba maalinta carafad duceysteen labadoodana laba wadan ay kala joogaan laba qof oo istaqaana ma aha waa laba qiso midba meel aan ka keenay insha Allah marka wiil ahow ama gabar ahow qof walba guur ka soo daahay waxay ku siinaysaa rajo wanaagsan si ilaahay farajku ugu furo waqtiga ugu dhowna u guursato marka maalinta carafo oo soo socoto ka faa'iideysi insha Allah bidnal kareem dan kasto aad leedahay guur oo kaliya ah insha Allah laga faa'iideysto qisada koobaad waxay ka dhacday dalka Jazaa'ir laakiin marka hore waxaan codsanayaa subscribe like qurux badan in ay sii share gareysid aan ku salino nabigeena suuban alayhi afdal salatu wasalaam allahumma salli wa sallim wa barak ala sidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo dhawaada asxaabtii sharafta leh qisada koobaad waxay ka dhacday dalka Jazaa'ir ama Algeria saa u taqaanid waxay dhahday gabadhan ama gabadha qisadeeda ka hadlayso waxay dhahday waxaan isla soconay muddo fara badan wiil isla soconay isku meel aan ka shaqeynay dabcan gabadhan waxay dhaqtarad isbitaalan ka wada shaqeynay marka waxay dhahday muddo badan isla soconay guuraan ku heshiinay waa is jeclayn yani rajo aad iyo aad u weyn ka qabay inaan is guursano niyada asagan ku haayay yani asagan sugay muddo badan sugay laakiin wiilkii isla yani waqti lama filaan ah ama sikadis ah oo nolosheeda uga baxay waa waay xariirku ii jaray waxay noqotay dhahday nolosheedii rajabeel muddo badan aan soo socday teeda kale waxay tiri waxaan noqday tirsa asaga u sugayay gabar xoogaa marka weynaatay oo yani 30 sano ku dhow aan noqday marka waxay dhahday marka fursadeeda markaan yani sidoo horeento way ka yartahay almuhiim waxay dhahday ilaahan tala saartay maalmaha kamid ah waxa la gaaray tiri bishii xajka bishaan oo kaleento waxay dhahday hooyaday way soo baxday waxay soo aaday xaj marka waxay tiri guriga aniga hooyaday oo kaliya ku nooleen hooyaday maadaama xaj ay soo aaday aniga oo kaliya guriga joogay marka waxay tiri social media iska dhex wareegayay waxyaabo iska daawanayay mar YouTube galayay waxay dhahday markii YouTube aan ku dhex jiro ayaa waxa arkay dhahday qiso ka hadlayso fadliga ay leedahay yoom al-arafa maalinta arafa la taagan yahay fadliga ay leedahay oo ku aadan maalinta sabdiga bari jimco waaye maalinta sabdiga ku aadan insha Allah maanta qamiisa waxaan jeclaa fiidiyoga inuu soo galo marka waxay dhahday waa duceystay maalintaas casirkii wixii ka dambeeyay waxaan idinku dardaarmayaa waxay tahay maalintaas hadaadan duurka ilaa maqribka fursad aadan heli karin casirka ilaa iyo maqribka isku day noloshaada ama naftaada inaad fursad siisid maalintaas qiimaha badan aad uga faa'iideysid ama walaalaha u duceysid ama waalidka u duceysid ama haday dhintaan ama ha noolaadaan inaad yani inta aad jeceshahay oo noloshaada ku jiro inaad wada duceysid naftaadana u duceysid ma ah kaliya inaad ku duceysid maalintaas inuu ilaahay faraj ku furo almuhiim waxay tiri maalintaas nafteedaan waqti siiyay casirkii ilaa iyo maqribkii aan la baryayay oo aan duceysanayay oo guur xalaal ilaahay aan ka baryayay waxay dhahday arafadii way dhamaatay arafadii markay dhamaatay adii ay ka soo wareegatay sanad iyo bar amal markay ka soo wareegatay waxay dhahday maalmaha kamid ah waxa ii imaaday wiil habrirtay dhashay markuu ii imaaday wuxuu ii dhahday waxaan ku hayaa wiil guurdoon ah oo dibadaha ka yimid qurbaha ka yimid aan ku hayaa oo guur u baahan walaalay diyaar ma u tahay guur wiilkaas maadaama uu wadanka hadda yimid guurna uu rabo marka adigan kula soo jecelaystay marka waxay dhahday waa wareystay waxaan ay tiri hayabo aan isfahano waxay tiri wiilkii ii keenay inuu guur yani iga rabo uu sheegay waa sheekaysanay
طبعا marka is aragnay asna iga helay anna waa ka helay dhahday almuhiim waxay dhahday wiilku wuxuu ku soo baxay wiil kii hore oo iga tagay oo guurka iga baxay oo aan murugta igu dilay oo meel xun iga tagay mid ka qurux badan ka lacag badan ka aqoon badan ka reer magaalsan ka naxariis badan uu ku soo baxay dhahday dhan walba uga fiican yahay dhahday maalintaas ducadii aan duceystay dhahday kuma qasaarin badal khayr qab ilaahay igu siiyay wuxuuna noqday kii aan u murugeysnaay u calaacalayay meesha xun iga tagay mid ka fiican abaalmarin weyn oo yani aan filaynin inuu ilaahay midkan igu siiyay ducadeedan iga aqbalay waxay dhahday maal haday noqoto qurux haday noqoto muxuu ahay saqinimo iyo naxariis haday dhinac walba reer magaalnimo haday noqoto aqoon haday noqoto waxay dhahday tirnin ka qurux badan dhinac kasta ka wanaagsan waa helay marka qisadaas horta waa taas tan koobaad meeshaan uga bixinaa inaad rajo dhigin in haddii niyadda lagaaga jibiyo xataa badal khayr qaba mar walba ilaahay uu ku siinaayo sabar lagaaga baahan yahay iyo mar walba in la duceysto ilaahayna ma jeclo rabbi subxaanahu wa tacaala ma jeclo qalbigaaga in uu ku xirmo wax aan asaga ahayn ama adduunyo ha ahaato ama jecel qof aad jeclaanaysa ha ahaato ama ilmahaaga ha ahaato ilaahay wuxuu jecel yahay qalbigaada inuu asaga ku xiran yahay qalbigaaga meel kale hadduu ku tacalluqo oo ku dhamaatay ama ku xirmo ama waxa aad iska dhaadhicsid waxaan kama maarantid almuhiim qisada koobaad waa taas sidoo kale qisada labaad oo gudagaleynaa iyadana waxay ka dhacday wadamada carabta wadan ka mid ah wadamadan khaliijka Kuwait iyo meelahaas iyo Sacuudi iyo meelahaas ka dhacday waxaa jirtay gabar reer ugu yareed walaalaheed gabdhihii iyo wiilashii oo dhan guursadeen habaryaasheed oo daris ay ahaayeen gabdhahoodii isku daad ahaayeen ay wada guursadeen iyada laakiin wili aan guursanin oo iyadana sidoo kale guurka ka soo daahay iyada marka sababta uga soo daahay guurka waxay tahay hooyadeed waxay jeceshahay inay la joogto maadaama gabdhihii kale wada guursadeen wiilashu guursadeen cidlo u guriga noqday hooyada ma rabto inay gabadhaan ka ag dheeraato ma rabto nin kasto oo guur ka soo damco dhaliil u yeeshaa hooyada way ka hor istaagtaa nin kasto way ka hor istaagtaa almuhiim gabadhii way weynaatay idan sidoo kale waxay gaartay 32 sano waxay dhahday walaalahay gabdhihii la dhashay gabdhihii habaryaashay ilmahoodii ay dhaleynay leedahay yani dhirkooda ani garabkayga dab ima rabaan waa gabdhihii isku daad aan ahayn ilmahoodii ilma yani hadda garabkayga soo gaar rabe aniga marka waxay leedahay hooyaday ayaa igu dhagan oo guurkeeda hortaagan mar walba marka waxay dhahday aabahay tir khayr Allah siiyo wuxuu ahay aaba naxariis badan oo khayr ila jecel oo hooyaday waxay sameynaysan u jeedo oo laakiin baari ah almuhiim waxay dhahday sidaan oo kale hadane waxa soo galay bishii xaj waxay dhahday waxaan israacnay aniga iyo walaalkay si aan u soo xajino marka waxay dhahday hal duco oo markaas ani iigu darnayd hal shay markaas ani iigu darnay waxay tiri waxaan ku qortay meel si aanan u iloobin ducadaas oo yani ugu mashquulin ama waxyaabo kale aan ugu duceysanin ducadaas in ay number 2 ii ahaato aan ugu talagalay waa baxnay dhahday xajkii aadnay intii xajka aan ku godag jirnay dabcan maalinta arafo iyadoo fadligeeda badan yahay oo ducadeeda la aqbalayo haddana qofka haduu sii xajnaayo way ka sii fiican tahay marka waxay dhahday ilaahay waxaan ka baryaayay inuu igu arsaaqo sidoo kale zooj xalaal ah ya rabbi yani waxay dhaysay mar walba ilaahay igu arsaaq nin xalaal ah guur xalaal ah ilaahay igu arsaaq mar walba ka baryayay almuhiim xajkii soo dhameysteen iyada iyo walaalkeed waa soo laabteen adiga muddo sanad marka soo wareegatay sanad ay joogeen sanad markii ay joogeen waxa soo doontay ninkaas oo asagana yani aan guursanin ma la dhihi karaa wiilnimo ku weynaaday gabdhaha waxa la gabarnimo ku weynaatay wuxuu ahaa nin aan guursanin oo wiilnimadiisa ku weynaaday oo jiro 44 sano asagana marka wuxuu la noolay hooyadiis guur oo dhan darteed u dhaafay
maadaama waayeel ay ahayd wuxuu diidayay naag inuu u keeno oo hooyadiis isfahmi waayaan ama hooyada sidii ay rabtay ay heli weyso ama asaga xataa uu ka mashquulo naagta iyo ilmaha iyo ku mashquulo si uu hooyadiis u daryeelo uu hooyadiis u dhaqaaleeyo uu hooyadiis garabkeed u taagnaado naag oo dhan iska daayay ninkaasaa soo doontay ninkii markii uu soo doontay iyadana waxay jirtaa 32 sano ninkan wuxuu jiraa 44 sano marka waxay leedahay waa nin igu munaasib ah oo igu fiican almiim waxay dhahday ninkii hooyaday maadaama awal nimanka iga hortaagneyd way ogolaatay waxay dhahday ninkii isguursanay carabta markay guursadaan waxay aadaan waxa la dhaho shahrul casal ma aha meel aadaya shahr casal waxa laga wadaa bishi malabka laakiin ayaga waxay aadaan bishaas dalxiis ay aadaan marka waxay dhahaan shahrul casal marka waxay dhahday waxaan aadnay dhahday laba wadan ay aaday waxay aaday Sweden ay ahayd amaleyna Switzerland miyas camal iyo waxay tiri Faransa aaday sidoo kale waxay dhahday dharka aan soo gatay wuxuu ahay markaad dharka ugu qaalisan sidoo kale wuxuu iga tiri almaas waxa la dhaho oo daata qaanin oo dahabka qaalisan wuxuu iga tiri dahab fara badan wuxuu ida jeetiro guri weyn oo kaalay arag waxay dhahday marka aniga ilaahay waxaan ka bari jiray gabdhaha aniga la dhashtay iyo gabdhaha bariyaashay maadaama ay guursadeen waxay ilaahay ka bari jiray si ay u guursadeen oo noloshooda gaar ugu tahay oo reer u dhaqanayaan sidoo kale nin mankooda nin oo kaleenta ah yani nolosh ay haystaan oo kali ina helo laakiin markii aan ninkan helay waxaan ogaaday tiri ninka aniga i guursaday in uu yani aniga ay soo gaar markaan nolosha aan ku noolahay guri يعني فيلا وين بدن لإدجية شقالين يجوجان دركيج ماركات يهين ذهب الماس يحلب يقضي وحيد هذا ماركا يعني نن نحرز بدن وضمانة شرب يوسو وريجي ماركا وحيد تري وحا أركي يعني إلهي هدو ديق قصينا إني سن حد لهين حد أولاً إني سن لهين waxa aad ka rajeynaysid inaa heshid inuu ka badan ku sii karo iyadoo waxay rajeynaysay gabdhahaas nimankooda oo kale noloshooda oo kale sida u guursadeen siday reer u yeesheen noloshaas oo kale bisii rabtay laakiin ilaahay wuxuu siiyay nin yani ninkooda ka wada taajirsan nolol waxay heshay noloshooda ka sareyso marka waxay dhahday ilaahay wuxuu ugu arsaaqay dhahday markii ugu horeysay waxay tir wiilan dhalay ninkay waxay tir wuxuu igu sharfay inaa u baxsado magaca Bahey oo markaas ka hor dhintay intaan wiilka dhalin ka hor oo cunugayga uusan arkin waxay dhahay maadaama hadda dhow aabaha dhintay aabaha ayaa lagu sameeyay cunuga noogu horeeyo carabtan waxay caad u leeyihiin wiilka ugu horeeyo ninka aabiis badana yani 95% ninka aabiis aad wiilaha lagu sameeyaa hadii ay gabar tahayne inkastoo badana hooyada iyo magaca u baxsato laakiin badana hadana ninka hooyadiisa lagu sameeyaa marka wuxuu fasaxay inay aabaheed ay ku sameyso magaca aabaheed ay ku xasuusnaato cunugaas ugu horeeyay marka waxay leedahay hadda waxa ay joogto 4 caruur ah alxamdulillah nolosheedu waxay dhahday maalintii ninka aan guursaday ilaa hadda waa isku si wax iska kay bedelay malahan khayr iyo bashbash iyo barwaaqo leh hore u sii galo yahay dhahday wax naaqus iga ma jirto marka qisooyinka waxay dhiirigelin u yihiin dadka gurka ka soo daahay in ay ka faa'iideystaan maalinta Carafo social media ka dheeraatiin heesa dhageysi ka dheeraatiin quraan ina akhrisatiin waxa awoodid oo quraan ina akhrisatid ina duceysatid insha Allah kulligeenba qof walba meeshu ka oomayahay Ilaaha ka waraabiyo faraj khayr qabani aniga iyo adinkaba iyo muslimiinta oo dhanba Ilaaha noo wada furo waan idin salaamayaa inta fiidooga mid lamid ku kulmayno falort markor subscribe isaar like qurux badan isaar ina sii share garay maalinta Carafana laga faa'iideysto insha Allah aan ku salino nabigeena suuban alayhi afdalu salatu wassalam Allahumma salli wa sallim wa barak ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma'a salaam asxaab sharafta leh